nimca xasan waa haweeney dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Burco waxay xaafadeeda ku dhex farsamaysay saliidda haweenku marsadaan madaxa goobjoog oo maanta u kurgalay nooca saliidaasi ayaa waxay nimca uga warantay waxyaabaha ku kalifay sameynta saliidan waxa ay ka samaysan tahay saliidaasi iyo sidoo kale qiimaha ay ku iibiso. alxamdulillah waan dhawahay aad bad walaal u mahadsan tahay saakala khayr baan ku leeyahay walaal waxay ku kalifay wax loo baahan yahay horta inay tahay waan ogaa waxa kale oo ku kalifay walaal waxaan anigu isticmaalo oo aan shakhsiyan saliid ahaan u isticmaalo markan waayay ama aan markan saliidihii kale aan soo iibsado mid kastaaba ay dhibaato igu keentay ayay walaal igu kaliftay oo aan u sameeyay markan hore aan sameeyay markii uu horeysay aniga isku tijaabiyay oo marsaday waan ka faa'iiday alxamdulillah sanad baan soo marsanay anigu faa'iido badan baan ka helay alxamdulillah rabbil caalamiin hablaha kale ka iga qaatay iyaguna aad iyo aad bay walaal uga faa'iideen walaal ma cunto maaha timaha weeyaan timaha dumarka aad iyo aad bay dhibaatooyin badan baa jira oo timaha dumarka haysta sida burburka inay timihii jajabaan inay gunta ka soo siimaan oo timihii oo dhan soo wada baxaan ay soo meeshoodiiba ka soo go'aan inay wala leeyihiin timo waxa kaga dhigaya gunta toxob way garanayaan dumarku intaas oo dhan way baabi'inaysaa ma sha Allah dherer aad iyo aad u qiimo badan oo qurux badan bay yeelanayaan timuhu de insha Allah in badan ka faa'iido in kale oo ka sii badanna inay ka faa'iido waan jecelahay waxyaabahan ka sameeyay horta saliid waa saliido saliida waxa kamid ah saliida lafteedu waxa weeyaan waa saytuun saliida kale badan oo muhiim oo way jiraan oo ku jira dhirteena dabiiciga way badan yihiin oo ku jira waxa weeyaan carrot baa ku jira avocado ku jirta iyo kuwa kale walaal badan goobo ii khaas ah oo aan geeyaa ma jirto way jiraan dad yow yiri noo keen laakiin cid aan u geey ma jirto way intan sameeyaba hablaha ii yimi ka faa'iiday baa ka badan intan anigu awoodeyda aan sameeyo waxa ka badan hablaha ii yimaada marka gurigaygu baa la iga qaataa qiimaha aan siiyo caagadaas sawirkeeda qaaday waxa weeyaan $5 weeyaan faa'iidadeeda see ka badan ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay in badan ay dumarkeenu ku liibaanaan oo ka faa'iidaan insha Allah mid kamid ah iyadoo hablaha isticmaalay saliidan lagu dhex farsameeyay dalka ayaa ka warbixisay faa'iidooyin kala duwan ee ku jirta ما شاء الله ولا سليد وسليد عاد قيمة بدن أي إنه هندسة ولا شيء إن معاه حسن جامع وسليد أنك فائدني رونها أنت مركو هرد ويسكا نبعته بدنا أنت ما هو سليد في عن مركانة هيسنين أما وحتر له عاد كو استعمال مركانة هيسن ويسكا دي بدن تهاي مركان ولا شيء نفهانت هذا جدو كبير وضي مركي هراء جدو بلعبتي إن نفهانت هذا يسوع سميسو كدي نفهانت هذا مركو سميستي markii ay ka faa'iiday bay bilowday inay walaalaheeda kale inay u faa'iideyso marka way noo sameysay waan ka faa'iiday saliid aad u qiimo badan weeyaan ma sha Allah anigu waan ka faa'iiday sida aan taxootay ka saaraysa aflaaqada way ka saaraysa way saaray timihii way dheeraynaysaa way ku jilcinaysaa ma sha Allah waa saliid aad u qiimo badan aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan leenahay hambal iyo walaalo hore u soco insha Allah taayo wax ka sii badan ba insha Allah waan ka rajaynaynaa nimca xasan muddooyinka u dambeeyay waxa ay haweenka gobolka Togdheer soo bandhigayeen hal abuuro kala duwan oo ay leeyihiin xasan xamdulle goobjoog Burco.